bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan warka qarankaab TV qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya shirka Jabuuti maalintii afraad ka socda oo laga gaaray guulo waaweyn iyo qodobo muhiim ah oo la isku fahmay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland oo aad isugu soo dhawaaday iyo diyaarada ay hore u diiday Somaliland oo ka dagay Hargeysa xukuumadda Soomaaliya oo dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada gudaha iyo dibadda dalka ciidamada dowladda Soomaaliya oo al-shabaab kala wareegay deegaano ka tirsan Galmudug iyo xiisada u dhaxaysa dalalka Shiinaha iyo Hindiya oo cirku isku shareertay kadib dagaalkii dhimashada sababay ee ka dhacay xadka labadaasi dal u dhaxeeya qodobadaas ayaad ku daawan doontaan warka qarankaab TV goordhowna waxaad maqli doontaan iyagoo faahfaahsan balse qadar dhaxtaal ah hagaag daawadayaal qadarkaasi dhaxtaalka hadii intaasi aan kaga talaabnana waxa wali magaalada Jabuuti ee dalkaasi Jabuuti ka socda wada hadallada u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland kuwaasi oo galay maalintii afraad shirkan waxa labada dhinac ku matalaya guddiyo farsamo oo dhawaan la magacaabay waxaana la soo sheegayaa in guulo muhiim ah laga gaaray shirkaasi ilaa iyo hadda waxa la soo sheegayaa in labada dhinac ay isku afkarteen ilaa iyo qodobo dhowr ah qodobada la isku afgartay ayaa waxa kamid ah in Somaliland aysan wax fiisa ah ku xujin shacabka Soomaaliyeed ee ka baxaya gobolada ka baxsan Somaliland ee tagaya deegaanada maamulkaasi iyo sidoo kale in deeqaha beesha caalamka ay soo maraan dowladda federaalka ee Soomaaliya isla markaana bangiga dhexe koonto gaar ah looga sameeyo Somaliland labadan qodob ayaan hordhac u noqonaya qodobada wax ku oolka ee ka soo baxaya shirka u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland waxaana sidoo kale laga dhursugayaa in shirkaasi ay ka soo baxaan qodobo aad muhiim u ah waxaana wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi Jabuuti la filayaa in saacadahan soo aadan ay ka hadasho qodobada ay isku fahmeen labada dhinac wixii ku soo kordha wararkaasna wararkeena daba ayaad kaga bogan doontaan insha Allah markana waxa maalintii axad ahayd magaalada Hargeysa gaar ahaan Cigaal International cagadhigatay laba diyaaradood kadib furitaankii shirka Jabuuti ee wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland diyaaradahaasi ayaa ahaa kuwa ay hore u diiday Somaliland oo la sheegay inay buufinayeen anyaxa isla markaana la soo mariyay dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyada maamul goboleedyada dalka sii gaarsiinaysay imaantika diyaaradahaasi ayaa la xiriiriyay furitaanka shirka iyo isfahan wada shaqeyn ah oo ka dhashay shirkaasi isla markaana u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland oo muddooyinkii dambe ay ka dhaxaloosneed xiisad xooggan wasiirka beeraha ee Somaliland iyo xubno ka tirsan hay'adda beeraha u qaabilsan qaramada midoobay ee FAO ayaa magaalada Hargeysa ku soo dhaweeyay diyaaradahaasi oo xilligan baahi weyn u qabtay Somaliland maadaama uu anyaxa faraba'an ku hayay qaar ka mid ah deegaanada maamulkaasi wasiirka beeraha ayaa sheegay in dadaal badan ay geliyeen diyaaradahaasi kuwaasi oo uu sheegay in ay wax ka tari doonaan sidii loo dabargoyn lahaa anyaxa faraha ba'an ku haya diyaaradahaasi ayaa ka mid ahaa kuwa ay hore u diiday xukuumadda Somaliland xilli loo soo mariyay dowladda federaalka ee Soomaaliya markana dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta mar kale si rasmi ah ugu dhawaaqday inay dib u dhigtay furitaanka duulimaadyada Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo wareysi siinayay telefishinka qaranka ayaa sheegay in dowladda go'aan ku gaartay in hadda aan la furin duulimaadyada gudaha iyo kuwa dibadda sababta ayuu wasiirku ku sheegay in ay ka fogaanayaan wali halista cudurka COVID-19 oo si weyn ugu faafay Soomaaliya iyo adduunyada kale iyadoo laga taxadaraya in cudurka COVID-19 oo maraya marxalado kala duwan wadanka gudihiisa in dib looga soo celsho meel uu ka yaraaday ama la geeyo meel ilaa hadda uusan gaarin ayaa dib loo dhigay furitaanka duulimaadyada gudaha ayuu yiri wasiir Omar dowladda Soomaaliya ayaa hore looga soo xigtay in duulimaadyada Soomaaliya ay furmi doonaan 18 bisha June sanadkan 2020 saacadu marka ay tahay 5:59 daqiiqo oo habeenimo
xayiraadda la saaray duulimaadyada gudaha Soomaaliya ayaa ku ekeyd 8 bisha Juun. Dowladda weli sooma saarin amar shaacsan oo lagu dheereeyay yeeshee duulimaadyada ayaa weli hakad ku jira. Xog la helay ayaa sheegaysa in lagu wada in duulimaadyada dib loo furo 30 bishan. Markan ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay gaareen deegaan ka tirsan Galmudug kuwa ay hore gacanta ugu hayeen Al-Shabaab. Howlgalladan ayaa waxay ciidamadu ku gaareen deegaanka Warxoole oo hoostaga degmada Ceelbuur halkaas oo ay gacanta ku hayeen dagaalyahanada Al-Shabaab. Wararka ayaa sheegaya in ciidamadu ay si nabdoon kula wareegeen deegaankaasi kadib markii ay isaga baxeen Al-Shabaab oo u dhaqaaqay dhanka deegaanka Wabxo ee gobolka Galgaduud. Taliyaha guutada 15aad ee qaybta 21aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Sareeye Guuta Mascuud Maxamed Warsame oo goob fagaaraha kula hadlay dadka deegaanka ayaa ugu baaqay inay isdejiyaan isla markaana ay ka shaqeeyaan sugidda amniga. sidoo kale wuxuu tilmaamay inay sii wadi doonaan howlgalladooda tan iyo inta Al-Shabaab laga saarayo gobolka Galgaduud iyo Mudug ee bartamaha Soomaaliya. xaaladda ayaa hadda degan waxaana lagu soo waramayaa in ciidamada dowladda ay fariisimo cusub ka sameysteen duleedka degmada Ceelbuur ee maamulka Galmudug. howlgalkan ayaa sidoo kale ciidamadu waxay ku gaareen deegaanada Ceelgod iyo warar dhuumo leh oo dadka deegaanka si diiran u soo dhaweeyeen socdaalka ciidamada. maamulka Galmudug ayaa muddooyinkii dambe waxa uu sameeyay horumar la xiriira dhanka amniga. ugu dambeyntiina waxaa aad u sii xumaanaya xiisadda u dhaxaysa dowladaha Shiinaha iyo Hindiya. dhawaan ayay ahayd markii 20 askari oo u dhalatay dalka Hindiya lagu dilay dhacday habeennimadii Isniinta aynu soo dhaafnay ka dhacday xadka u dhaxeeya labadaasi dal. dhacdadaasi ayaa waxay ka dhacday buurleyda Galwan ee gobolka lagu muraysan yahay ee Ladaaq. dowladda Shiinaha ayaa ku eedeysay ciidamada Hindiya in ay 2 jeer ku soo tallaabeen xadka iyagoo careysan ayna weerareen shaqaale u dhashay Shiinaha. Ra'iisul Wasaaraha Hindiya Narendra Modi ayaa sheegay in marnaba aysan ahayn wax la aqbali karaa in dowladda Shiinaha ay disho askar ka tirsan ciidamada Hindiya. wuxuuna sheegay in dhankooda aysan maran la murugeysnayn ciidamadaas isla markaana ay yihiin kuwa u dhintay dalkooda. militariga labada dal ayaa muddo 10 sano ah isku haystay dhulka aadka u sareeya ee buuraleyda ah oo u badan gobol aan la deganayn. ciidamadooda ayaa si kafool isaga hor imaanaya meelo badan oo gaaraya ilaa iyo 3400 oo kiiloomitir waana xadka ay wadaagaan labada dal. iska hor imaadka ayaa yimid kadib markii bilihii la soo dhaafay ay xiisado ka dhasheen waddo cusub oo Hindiya laga dhisay oo ku taala magaalada Ladaaq iyada oo la raacaya khadka tooska ah ee kala qaybiya labada dhinac ee xuduudda. taasi ayaa ka careysiisay Shiinaha oo ciidan geeyay halkaasi. labada dhinac ayaa u arka deegaanka lagu muransan yahay inuu yahay mid muhiim u ah xagga dhaqaalaha iyo militariga. hadduu midkood uu wada hadallada aqbalin isla markaana dib u heshiisiin la sameynin waxa arrinkaasi cawaaqib xumo ku yeelan kartaa gobolka ay isku khilaafsan yihiin labada dhinac. guud ahaan daawadayaal wixii war aad kala socoteen Qarankaab TV waa naga intaa. sidaas iyo nabadgelyo.